xog hoose oo aan helnay ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweynaha Soomaaliya uu qorsheynayo xilka qaadis degdeg ah oo lagu sameeyo saraakiisha ciidanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya si gaar ah saraakiisha gaarka loo beegsanayo ee xilka qaadistoodu miiska saaran tahay waxa kamid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raagi iyo taliyaha guud ee booliiska Soomaaliya General Xijaar xilka qaadistan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli ay dalka bilooyinkii la soo dhaafay ka socdeen dagaalo xooggan oo lagu la dagaalamayay al-shabaab dagaaladaas oo ka dhacay meelo kala duwan ayaa waxa qayb ka mid ah hogaaminayay General Odawa Yusuf Raagi waxaana uu guulo ka soo hooyay furimaha dagaalka iyadoo ay ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya aagag muhiim ah ka qabsadeen kooxaha al-shabaab sidoo kale taliyaha Xijaar waa sargaal weyn oo khibrad ciidan leh muddo dheerna ka soo shaqeynayay hay'adaha ammaanka ee dalkeena Soomaaliya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa waqti badan gelinayay sidii Muqdisho looga dhigi lahaa mid amni ah Xijaar oo xukuma in ka badan 10,000 oo booliis Soomaaliyeed ah oo ka howlgala magaalada Muqdisho iyo maamulada qaar ayaa waxa hadda la soo sheegay in xilka qaadistiisu ay miiska saaran tahay caadiyanba isbedel markii uu ka dhaco dalkeena Soomaaliya waa mid iska caam ah in madaxweynaha markaas xafiiska yimaada uu xilka qaadis degdeg ah ku sameeyo saraakiishii xukumaysay ammaanka dalka ee la soo shaqeysay madaxweynihii ka horeeyay Farmaajo ayaa kal hore isagu waxa uu xilka qaadis ku sameeyay saraakiishii ka horeysay ee la soo shaqeysay kal hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xukunka dalka u dhiibay saraakiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raagi oo sargaalkii ugu da'da yaraa ee burburkii kadib dalkeena soo maraa xogtan ayaa waxay sheegaysaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu laba sababood xilka qaadistan ugu sameynayo saraakiishan midda koowaad waxa ay sheegaysaa in saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dadka la shaqeeya ay isku xisbiga yihiin kana tirsanaayeen xisbiga UPD ee madaxweynuhu talada ka qaato inay xilli horeba u soo jeediyeen inuu xilka qaadis ku sameeyo saraakiishii la soo shaqeysay madaxweyne Farmaajo waxayna uga jeedaan madaxweyne Farmaajo Xasan oo culayskaas haystay ah inuu saraakiishaasi xilka ka qaado una magacaabo saraakiil kamid ah xisbiga UPD ama madaxweyne Xasan Sheekh si gaar ah u taabacsan ama uu kalsooni badan ku qabo ayaa haddana waxa uu dalku galay dagaal buuxa oo gobolada koonfurta si buuxa uga dhacay waxaana fariisimo badan dib looga qabsaday al-shabaab iyadoo ay muddo ka badan 3 bilood dagaal ka socdeen koonfurta Soomaaliya madaxweyne Xasan waxa lagu cadaadiyay in dagaalada socdo uu madaxweyne Farmaajo qayb ka yahay sidii loo fashilin lahaa isagoo oo doonaya fashiliyo dagaalka la rabo in lagu soo afjaro al-shabaab ana loo xaqiijiyay la taliyaal sarsare oo la taliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay u soo jeediyeen in taliyaha booliiska Soomaaliya General Xijaar iyo taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya Odawa ay xiriir hoose la leeyihiin madaxweyne Farmaajo kuwaasi oo laga yaabo inay mar walba amarka ka qaataan madaxweyne Farmaajo ayna fashiliyaan dagaalada socda inkastoo aysan caadiyan suuragal ahayn in sargaal qaran oo haya shaqo qaran uu madaxweyne waqtigiisu ka dhamaaday u fashiliyo laakiin se caadiyanba siyaasiyiinta Soomaalida ah waxa haysa kalsooni darro ballaaran iyo culaysyo uga kala imaanaya dad ay xilalkaas la raadinayeen ama kula ballameen waqtigii ololaha ay ku jireen waxaana muuqata in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hadda u diyaar garoobay xilka qaadis ka dhan ah dhammaan saraakiishii la soo shaqeysay madaxweyne Farmaajo taasi oo madaxweyne Xasan ku riixaysa inuu la yimaado saraakiil cusub oo khibrad leh una dalka ka saaro al-shabaab isagoo haysta waqti ku filan Xasan Sheekh waxa looga fadhiyaa inuu dalkeena Soomaaliya ka dhigo mid amni ah kana nadiifiyo kooxaha al-shabaab maadaama ay qabiiladii Soomaaliyeed kaceen oo ay dagaal ballaaran ku qaadeen al-shabaab Xasan oo aysan dawladiisu wax muuqda ku bixinayn dagaalka socda ayaa hadda waxa uu bareeray inuu xilka qaadis ku sameeyo saraakiishii xogaalka ahaa ee 5 sano ee la soo dhaafay ka soo shaqeynayay amniga dalka waxaase Xasan hadda looga fadhiyaa inuu dalka u magacaabo saraakiil khibrad leh oo lagu haleyn karo ammaanka dalka lagulana xisaabtamo intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya